muddo hal sano ah oo aan shaqeynay dad baa waxay caadaysteen ama reer suraad ha ahaadeen ama reer gudaha ha ahaadeen inay maamulka koonfur galbeed habeen iyo maalin ay been ka sheegaan oo ayagoonan arkin oonan imaanin wuxuusan maamulka ahayn ay sheegaan baydhaba xasuuq ka dhacay xasuuqa micnihiisaanan la fahmin baydhaba dad lagu dhameeyey koonfur galbeed baa saas u yeelay wax ay caadaysteen ay ahayd oo aan laga xishoonayn waxaa u badan dadka siyaasiyiinta ujeedada ugu weyn oo laga leeyahay markaa weydiisidoo la sheekaysatid xisbiyada mucaaradka ah waay markay shir isugu yimaadaan waxaad ka sheekaysanayeen waxa ay sheegayaan ugu badan waxaa waaye dowladdan ula jeednaa adinka maaha war annaga baad naysatay maxay dowladda ula jeedaa dowlad maxay noo dhintaanay annaga wax dhibahoon qabno male annagaa isku tashanay annagaa isxallinay annagaa heshiisa maxaa adiga shahaado zuur u noqonaysaa oo been nooga sheegaysaa oo waxaanan qabin u sheegaysaa oo habeenii maalin dad aan naga dhimanin nooga dilaysaa oo masiibo noogu tiraadinaysaa soo nin damiir lama tiid soo nin siyaasadda rajo ka dhigid soo ma tiid soo nin muslim ah soo ma tiid soo nin xishoonayo ma tiid waxaan soo ma ogi in laguu qoraayo oo taariikhda ay kuu gelayso soo ma ogi in aakhare lagu qorayo ilaahay kugula xisaabtamayo intee ku dhintay la dil yidhaa waxaan rabnaa beenta aan raadka lahayn ee la caadaystay ee dadka siyaasiyiinta sheeganayo oo xamar jooga ay u bateen habeen iyo maalin ay dadka reer koonfur galbeed ugu dulqaadanayaan ay sheeganayaan nama qabato mana ka aqbalayno intaan ka badan uguma dulqaadanayno hanaga raalli ahaadeen waxaan kaloo rabaa inaan idiin sheego intii aan xilkayno inta joogno waa ogeydeen maalin maalmaha ka mida ma rabo inaan aada ugu dheeraado 11 qof oo dad reer koonfur galbeeda yaa hal subax nin inta la soo kacay baa waxaa lagu laayay gaalkacyo xasuuq kaas ka weyn maa jirin weligii wax sheegaayo ma maqasheen dadka sheegaayo oo baydhaba lasoo xasuuqay leh meesha xasuuq uu ka dhacay dadka ka yimid waay kii asagaa ma sheegaayaan kala xishoonayaan annagii baa xishoonayna nala xasuuqay hal subax yaa dad masaakiina oo reer koonfur galbeeda oo beer shinni ah ka shaqaynhaya oo 4 qof oo dhalinyaro ah xoogooda sabcanayo iyo inta loo soo dheelmaday baa la xasuuqay oo la dilay weligii wax sheegaayo ma aragteen haddana kuwii yeelay baa waxay leeyihiin waxaa la xasuuqay baydhaba xasuuq ka dhacay weligoodna baydhaba maysan arkin waxaan rabnaa markaa